halkan waxaan kula kulmay wariyaal muwaadiniin ah oo u ololeeya caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan degmooyinka Maxamuud Haybe Maxamed Mooge oo isxilqaamay aad iyo aad bay mahadsan yihiin magacayga waxa la Khadar Cabdiqaadir Kaarshe hadda waxaan ku suganay degmada Maxamuud Haybe cashuur baan ku soo bixiyay wararka faylkan 23 bisha magacayga waa Khadar Cabdiqaadir Kaarshe cashuurtaasaan bixiyay sanad kasta cashuurta waan bixinaa 500 shilin naguma baaqdo ummadda kale ay la midkiina saasoo kale ayaa cashuurta u bixisaa cashuuro kale fara badan oo igu waajibayna waan bixiyaa laakiin dawladda hoose ee cashuurtan aanu bixinayna la doonayay inay wax lagu soo celiso ay dadka wadooyin ugu dhisto oo ay xashiishka kaga qaado ay imkaaniyaadka nolosha asaasiga ah ay wax ka qabato wax alla waxaanu ka haynaa ma ay jirto xashiishkiiba meel walba buux dhaafiyay wadooyinka waa arkaysaan waddo 2 sanadood miisaaniyadda ku jirtay oo waddada saldhigga dhexe ka timaada ee ilaa madaarka internationalka ah ee Hargeysa International Airport tagta ilaa aanka wax laga qabtay iyo wax u diyaari midna ma jirto 2 sanadoodna waxa la waday waddada waanu dhisaynaa marka waxaanu ka codsanaynaa cid kasta haday tahay dawladda dhexe iyo haday tahay dawladda hoose cidii damiir leh ka dhiibiyaysa arrimada noocaas oo kala inay wax ka qabato gaar ahaan waxa si gaar ah ula hadlayaa maayarka xigeenka iyo xogayaha oo aan leeyahay ummaddiida soo dooratay ee cashuurtu aanay ku baaqan ee wixii iyaga ku waajibay iska bixiyay idinka ku waajibaha inay iska bixisaan ayaanu iska codsanaynaa haddaydan karayn oo idan awoodda iyo capacity-ga hawsha ku qabanaysaan aydan lahayn amba aydan u dhalanna xilka ummadda u haysaan bifadlan iska casila oo ummadda u soo celiya ammaanadeedii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wariyaasha madaxa bannaan ee halkan igula kulmay ee u dhaqaaqay